اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. اللهم جملني بقلب رحيم وعقل حكيم ونفس صبورة، واجعل بسمتي عادة وحديثي عبادة وحياتي سعادة وخاتمتي شهادة. السلام عليكم أصحابتي قاليga kusoo dhawaada YouTube channelkeena waa mar kale iyo muuqaal cusub. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago afurkeena sida uu ahaa, afur yar oo simple ah oo iska fudud ayaan rabaa inaan idin la wadaago. ugu horeyn meeshaan waxaan ku sameysanayaa scrub yar oo aan rabo inta aan hawsha qabanayo in aan wajiga marsado. wuxuu ka kooban yahay qasil iyo cusbur, labadaas oo kaliya ah. waxaan ku qasi doonaa biyo caadi ah. intaan ayaan isku qasayaa, kadibna waxaan marsan doonaa wajiga. intaan aan hadda isku qasay waxaan ugu talagalay in aan isticmaalo in muddo ah. wixii iga soo haro waxaan ku shuban doonaa weel, kadibna fridge-ka ayaan gashan doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. markii aan qasay kadib sidaan ayuu ku soo baxay. qasilka asaa dhowr nooc ah, mid oo madaxa loogu talagalay iyo mid kale oo wajiga aad ugu fiican iyo jirka. kan waa midkii wajiga loogu talagalay. intaas kadib waxaan rabaa inaan meeshaan aan ku sameysto afurkeenii. ugu horeyn waxaan rabaa inaan qasto sambuuska fooliyadiisa. bur ayaa waxaan ku soo daray wax yar oo cusbo ah, kadibna waxaan ku daray biyo caadi. intaan ayaan isku qasay. intaas kadib waxaan sameysanayaa qudaartii aan dhexda ka gelin lahaa sambuuska. hiliba iyo waxaan isku daray basal iyo karooto, maraq digaaga ku daray iyo huruud shiidan. intaas ayuu ka kooban yahay. sambuuska qofba qaab ayuu u sameystaa, laakiin hadda qaabkan aniga aan mostly u sameysto waa qaabka loogu jecel yahay gurigeena uguna macaan. fooliyada sambuuska waxoogaa yar ii taalay waatana 3 xabo ayaan ka dhigayaa. ma rabo wax badan inay ii noqoto. 3 qaybood ayaan isku soo dul saaray, kadibna waan soo fidiyay. intaas kadib waxaan sameynayaa inaan ka dhigo dhowr qaybood. saan ayayba diyaar inoogu tahay. Ramadaan hadda wuxuu marayaa gabagabo. 10 maalin ugu dambeysay ayaaba wax yar ka dhiman tahay ama waaba bilaabo rabtaa. wallaahi zaaid u socdaa ramadaankan. waxaa moodaa intaa sugeena isoo nagu dhaafa maba isla habo. maasha Allah, ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ajarkiisana siiyo, inaga aqbalo, kuwii acmaashaas ka faa'iideysteen oo ilaahay naga dhigo. sambuuskeeni ugu dambeyn saan uu diyaar ku yahay oo waan soo shiilayaa hadeertaan, wax uma dhinno. sambuuskeeni asaga dhan sidaan ayaan ku soo wadayaa oo aan ku soo wada dhameynayaa. sambuuska in galab kasto lagu afuro aniga aad ayaa u jeclahay, laakiin galbaa qaar waa u gambiyaa oo waxyaabo kale oo fudud ayaan booskiisa geliyaa. alxamdulillah, mar walba ilaaha mahad iska leh. nicmooyinka una siiya asaa ku mahadsan, qaybta adduunyada naga siiya ilaahay asaa ku mahadsan. maalmahan oo idil waxba idiima soo gelinin, waan iska mashquulay, laakiin hadduu Ilaahay yiraahdo maalmahan soo socdo insha Allah waan idin soo gelin doonaa muuqaalo iyo rutiino. inta badan waxaan wax idin soo geliyaa markii aan firaaqo ama jaanis helo. maalmaha qaarna waa iska mashquulaa, waanba ilaabaa kaamirada dhanaaba ilaabaaba. ana waxaan arkaya afurka kariyay oo dhameeyay baanteen. asaga dhan sidaas ayaan kusoo wada dhameeyay. waaweenkaas quruxda badan ayuu noo noqday, maasha Allah, aadna wuu macaana. dhinaca kale inta waxaan rabaa inaan ku sameysto burka macaanka ama caano macaanka kor loogu shubo ayaan rabaa inaan ku sameysto. bur ayaan ku soo shubay. waxaan kaloo ku soo darayaa leebato, sokor, cusbo, waxyaabaha soo idil ayaan ku soo wada darayaa. ugu horreyn sokorta ayaan ku soo daray. kadibna waxaan ku soo daray cusbada wax yar ayaan ku daray maadaama macaan badan aan u rabo. kadibna leebato ayaan ku daray ama faxiso
qof kasta suu u yaqaano. Biyo ayaan ku daray kadibna si fiican ayaan u qasayaa oo si fiican ayaan u garaacayaa. Muddo ayuu ii yaalay ugu yaraan 30 daqiiqo wuu yaalay. Markuu soo qamiiro kadib ayaan qaabkan usoo sameynayaa. Soo burkan gurigeena aadaa looga jecel yahay asagana mostly waan sameeyaa oo afurkeyga wuu ku jiraa. kadibna asaga dhan qaabkan ayaan usoo dubayaa. burkan Soomaalida xitaa aad u jeceshahay, guryahooda badanaa guri aan laga dubin wuu yar yahay waayo aad ayuu u macaan yahay. waqti badan ma qaadanayo, soo karintiisa way fududahay. kadib markii aan soo wada kariyo sidaan quruxda badan ayuu kusoo baxay oo sidaan ayuu kusoo dhamaaday. caanaha aan ku shubayana waa caanaha diyaarsan ee caano macaanka ah. soo finally saas ayuu diyaar inoogu ahaa. maasha Allah aad ayuu u macaanaa. dhexdan wax saliid waxba uguma jirin, lagama sheekeyn karin maasha Allah. intaas kadib waxaan rabaa inaan inta ku sameysto casho. dadka qaarna suxuure u tahay laakiin casho ahaan ayaan rabaa inaan inta ku kariyo. waxaan kusoo shubay saliidii iyo basashii, waxaan kaloo kusoo daray hilibkii. intaa markay wax yar isku hurto waxaan kusoo dari doonaa baradho. waxaan rabaa inaan xoogaa aan u yeelo maraq, soo baradho ayaan ku dari doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. kadib baradhadeeni waa tana oo aan waaweyn usoo jarjaray, waayo baradhada markii aad rabti inaad ku jijibisid waxaa fiican inay waaweyn tahay. dhaqsiyay kuu bislaanaysaa, hadhow jijibinteedana way kuu fududaanaysaa ama ayadaaba iskeed u burburayso. in muddo ay karsamayso way soo bislaatay. kadibna waxaa waaye abaalkeeda ka waraabinaya, waa jijibinaya. waxaan ka rabaa maraq canjeero ama canjeero lagu cuno, soo qoyaan u baahan yahay asaga. markii aan saan usoo habeeyo kadib ki doontaan wixii kale ee aan ku daro. soo ila socda asxaabteeda qaaliga. intaas kadib muddo soo karsamaysay, kabsar caleenteeda kusoo daray, cusbadeedii, cusbo, maraq digaag ayaan ku daray. intaas kadib karooto iyo waxaan ku daray baradho aan si yar yar usoo jarjaray. intaana isku huurina. markii ay bislaatana waxaan ku darayaa barbaroonigiisa. sidaas ayay diyaar ku tahay. canjeeradii lagu cuni lahaa xabad ka mid ahna waa tanaa. soo asxaabteeda haddii inta aad soo gaarto waan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. haddii aad horey noola joogtayna mahadsanid.